waxaana wanaagsan meel kasta adduunka aad ka joogtaan halka aad nagala socotaan waa Kalsan TV xaruntiisa magaalada Minneapolis iyo weliba Sebo haddaba barnaamijkan waa barnaamijkii la magac baxay kaftanka siyaasadda iyo Ali Xaraare bal Ali Xaraare ayaa isugu soo kooban barida bal Ali Xaraare ayaynu weydiin doonaa wuxuu inoo hayo Ali kusoo dhaw Ramadaan Kariim waya Ramadaan mubarak waa barnaamijka ugu horeeyay Ramadaan taban maalinta soo saar inagoo codsiga dadweynaha awgi tixgelin la joogi karo weynay ka fariisin karo weynay in barnaamijka dib loo socdo marka waa barnaamijka ugu horeeyay ee inta Ramadaanta sax soo baxay waya arrimo fara badan baa jira oo aan soo koobi karin laakiin bal inta ugu hal doorka ayaan baan soo qaadan doonaa yaasiin waxaan ka bilaabi doonaa dagaalkii ka dhacay afurur buurta galgala hoosteeda ee kooxda argagixisada al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan Puntland sax marka dadku waxay confuse ku qaadeen warka dhabta ay jiraan xaqiiqda jirta marka nin walba warka interestigiisa inta uu soo qaadanay Soomaalida dhibaatooyinka haysta waxa weeyaan ama Muqdisho ama Hargeysa ama Kismaayo ama Garowe meesha dul sameeyay qof walba si uu difaacayo uu leeyahay yaan laga badin ay nafta ka baxaysa jib haddii laga sii fogaado runta markii laga sii fogaado waxa si dhacay dulmi iyo xaq darro ayaa beentu keenaysa beentu marna ma keento wanaag iyo qurux okay guusha waxa la yiraahdaa markaad nin raga tahay maalin waad guulaysataa maalin wala guulaysataa laba jeer baa wayna qaran kartaa waa sax waaya dadka ku dhintay dagaaladii afurur iyo soo dhacay horta ka yar aan dadweynaha isku dhinto goor suxuura oo sabdaxa ayaa afurur oo tuulo yara kooxda al-shabaab intay buurta ka soo degeen ay dooxooyinka soo xuleen dabeetana waxay weerar ku qaadeen ciidamada halka fadhiya ciidamada way kaga naxsadeen hal irid bay ka soo galeen iridda labaad ee laga bixi karana ama marinka labaad ee laga bixi karana waxay si dhigan meeno si cidii halka uga baxsata xagaas ay meenada ugu dhibato ugu-yaraantii 4 ilaa 5 sarkaal ayaa ku nafwaayay oo qaarkood wiilada ay dhaleen ay la dhinteen ilaahu naxariis mid ka mid ah ilaahu naxariisto tusbaxda oo kale isaga waxa dilay meenadii wiilkiisina waxa dishay xabadii way dadka dhintay waxa lagu qiyaasay rumaysa ama rumaysan in ka badan 7 qof waa tiro badan ayaa la cadeeyay dadkaasi marka Soomaalidu iska saarsaarayso gobol waxay u badan yihiin maakhir buu baday oo reer Puntland difaac baa ka wajhay dhammaantoodba waxaan oran karaynaa marka hore waan u tacsideen ehelkii iyo qaraabadii ay ka dhinteen waxaan leenahay gacan xaq daran baa dishay bil Ramadaan baa ahayd ilaahay janno iyo raxmo dhammaantood baasi waxaa jira dhaawac fara badan waxaa jira rag ay gacanta ku qabteen al-shabaab nolol oo ay ka haysteen waxaa ku dhintay 4 haween oo qaarkood ciidamadan ay wax u karinayeen qaarkoodna ay tuulada yar markii ay rasaasta maqleen ay ka soo ordeen ayaa rasaas u dhacday tuulada afur la yiraahdo ciidanka al-shabaab waxba uma geysan dad ay ka laayeen tuulada iyo dukaanada ay burburiyeen iyo beero ay gubeen midna ma jirto waxay abaareen fadhiisinka ciidanka dabeetana dambaska ka dhigay waa baabiye halka lagu kaltay waaya dhibaatada keentay in ay guusha intaa la eg ay gacanta ugu soo kooxda al-shabaab ayaynu yeelaydo sida xaqiiqada baan markaa eegno dhinaca interestiga xaggan iyo xaggan midna waa sax waxa keenay dad al-shabaab ka tirsan dhalinyaro ka tirsan ayaa is soo dhiibtay markaa markii ciidanku is soo dhiibeen ciidanka al-shabaab is soo dhiibay meel gooniya lama geyn lama xidhin Garowe looma dirin isla meeshoodii ayaa ciidamada lagu diray waa nimanka telefoonada diray ee soo hagayay al-shabaab ee caawa soo gala saacad markay tahay ragga aan ka hadlay markii al-shabaab meesha soo galeen iyagu baraacay horosiraay marka khalad ugu weyn la galay waxa markii ugu horeysa
dad ashbaab iska soo dhiibay adoo fan ku jira dagaal inaad tira dagaal ila gal ma aha bade awrari xanaan military buurta istiraatiiji ahaan buur ciidan ay geli karayaan ma aha ilaa mooyaan ciidan xoog leh oo diyaarada wata waayo meesha waxa leedahay dooxooyin iyo qarar iyo buuro dhaadheer markaa nin meesha ku dhashay ama muddo ku noolaa unbaa garan karaya dhufaysyada iyo istiraatiijiyada marka ciidan kasta oo gala kala badh baa la cuni karaa ilaa mooyaane si wada jira inta loo dagaalamo dabeetana diyaarada loo kiciyo waayo ma aha markii ugu horreysay ee dagaal ka dhaco galgala area dhowr sano oo 10 sano u dambeysay waxaa ka socday dagaallo haba yaraadaan inta lagu kala jiray laakiin imika waxaad moodaa in arrintu ay sii xoogaysatay dhinaca kale marka la eego dhinacaas waa khasaarihii dhabta ahaa iyo meesha damagekii gaaray waxaan eegaynaa wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga ee Puntland ayaa ka hadlay arrinta dabeetana si fudud oo dhayar ayuu isaga yidhi meesha cidi kuma dhimane ciidamada waxaa lagu dilay dumar iyo carruur marka haddii ba la yidhaahdo meesha 70 ku dhinteen ciidamada dumar iyo ciyaal baa ku dhintay kuwii ilaahay askartii badbaaday ee imika nool marka idaacadda dhageystaan ninkaan dumar baa meesha lagu laayay dee askari si ahaan maayo ninkaas waa qalbi jab qalbi jab iyo madaxuma ku dhacay wuxuu leeyahay wixii halkaa ay dhex maray nimankii ayaa laga soo qaaday simply 4 dumar ku dhintay 5 dumar ku dhintay Puntland wax kaga xumaanaya haddii ay sheegtaan in khasaare intaa la eg ay argagixisadaas ay geysteen ummadda oo dhan baa la jirta Soomaaliya oo difaacaysa oo arkaysa in dadkoodii la laynayo sida saxda marka sida saxda waa sida waayo bal markuu horeysa aan dadka u soo gudbino isagoo afkiisa kule wasiirka amniga meesha haween baa lagu laayay daawasho wanaagsan dadka ay laayeen ama ay dhaawaceen waxay u badan yihiin dad shacaba odayaal haween carruur bay u badan yihiin oo hadda dhaawacoodii la hayo ama cusbaalada la keenay ciidamada dawladdu way iska difaaceen nimanka sharwadayaasha oo bisha Ramadaan oo barakeysan ee dadku cibaadaysanayo dhiigga muslimiinta raba inay ku cibaadaystaan raba oo gaalada ah kuwiina dhaalmaamiya laakiin waxaan macnaynaa waa ay dumarku ama dumarku waayo Puntland mas'uuliyiinteeda ma shacabkeeda markasta oo hadlaan hadal kasta oo ay ku hadlaan haween baa ku jira haween la yasayo haween aan loo arag inay dad bini aadam yihiin inay hooyo ka yihiin wax kasta oo la yasayo waxa la yiraahdaa haween dhowr example baan ku soo qaadanay waayo taleex shirkii markay ku shirayeen Faatumo 1 2 waxay soo midadaada fara badan oo qadiyadooda ka hadlay dabeetana madaxweynaha xilliga madaxweyne Faroole ayaa su'aal la weydiiyay oo la yiri dadka Soomaaliya sanaaga cayn ayaa waxay ku shirayaan taleex si ay iyagu danahooda ay iyo qadiyadooda uga tashadaan maxaa arrinta odhanahay wuxuu waxaan maqlayay meesha in dumar fara badan ay ku shirayaan هوري دور بكشري وحي رب مشاش واي كلمداس marka waa yeesid raga la yeesiyo dum la soo qaaday waxaan eegaynaa macnaha ismayn waay Abdul Maxamed Argaas oo u tartamaya xilliga markii uu madaxweynaha doonay inuu noqdo ayaa isagu example Puntland ka soo qaaday marka wuxuu yiri waa naag garooba oo marba nin sakhraansan uu guursado oo furo gabar gaari oo qurux badan aad u fiican laakiin nasiib darrada waxa weeye maalin walba alkuus ay guursataa marka waxaan leeyahay Puntland alkuusta dambe ha guursan aad bay ayaan daran tahay gabadh wuxuu ka dhigayaa gabadh garooba ayuu isagu wuxuu ka dhigayaa nin sakraar in wax aad u liita inay tahay iyana hooyooyinkeen baa ka mid tahay hooyooyinkeen waayo laba Soomaa taliyaha qaybta booliska ee bari asaas ayaa isaguna haatan ka hor waxa ay hawlgal ciidan iyagoo sameynaya ay galeen dugsi sare dabeetana waxay xidhxidheen arday iyo macallin markii la weydiiyay loo yidhi maxaad ku haysataan ayaa waxaa lagu haystay waxay in la baaro
kooxda Al-Shabaab oo ay ku tuhunsanayeen in ardayda ay adeegsadaan marka wuxuu ku jawaabay ninka booliska haysta xilliga ciyaalka dugsiga aan meesha dhigta waa ciyaal aan aabba lahayn oo dumar iska dhaleen dabeetana arrintaas waxay keentay in dadkii ay kacaan tahay ragubaan dadka dhaawacmaan gadood wasiirka ninka ugu dambeeyey arrimaha gudaha ayaa isaguna afkiisa ka maqlasay isagoo leh wax meesha lagu leeyahay waa dumar iyo marka mas-uuliyiinta Puntland maxaa dumarku ay ugu meeraysan marka iskalo ama hawl timaado dumar la yasayo ayaa ka soo baxa meesha runtii in laga waantoobo mas-uuliyiinta waxaa ka waantoobaan ayaan u rajeynaa shacabka reer Puntland waa dad niyad fiican waa dad walaala ma jirto codad ku kala jirta haddii halkan wax laga laayo iyo halkii dad ay ku dhintaan waa isku mid doontooda wada saaran laakiin wax la baahan yahay in la fahmo sheekadan galgal waa in la ogaado inay tahay nafteedu meel ay ku baxdo millions of dollars oo la yidhaahdo la dirirka argagixisada boosaaso waxaa timaada diyaarad sida lacag diyaaradda lacagta waxaa loogu talagalay in mashruuca lagu buuxiyo argagixisada marka mar kasta oo dagaaldo dad baa ku dhinta laakiin dhinaca kale marka laga eego waxaa dani ugu jirtaa in dhaqaalo lagu helo marka aniga waxay la qumnaan lahaa in dhaqaalaha lagu heliyo argagixisada lagula dagaalamo oo markaa la sifeeyay hadda laakiin nama doonaya mashruuc inuu sii socdo مشروع عقل قال هل كتاجري مركا شعبكم يو وحنا مكروه لكن مسؤوليته أي نقالة كسمة سنة وحياة الله إلى أن ندرك الجحسة ندرك برع بدايته إذا اللي أن هيئة لا دقالة بس برع بدايته أي أجرته أي هذا مراكب أي مسؤوليته كان كوي حاجة واي أنت أي مكبح دولا أنت دقالة دي أفور وهكذا waxaan u tagi doonaa maadaama aynu burcadbadeed ku jirno dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo ku xidhan maxaabiis hadda ku ah Seychelles waddanka Seychelles badda Mediterranean ku yaal jasiiradaas waxaa ku xidhan 5 iyo 10 wiil oo dhalinyaro Soomaaliyeed yaasiin oo khadka telefoonkan kula xidhiidhay iyagoo xabsiga ku jira dabeetana runtii waan ilmeeyey marka aan dhageystay waxyaalaha ka hadlay markaan sawirradooda daawaday waa niman dee waxa jirka xaragga iyo laftu ba isku dhegan wax kale ma harin xabsigu waa la abiis gareeyaa waxaa lagu xukumay 40 sannadood ilaa 20 sannadood waa wiilal yaryar oo 20 jir iyagoo ah 20 kale oo xabsiga la sii saaray oo niyadda ka dhimatay 5 wiil oo ka mid ah 15 kaan ama 15 kaan cudurka dhimirka ama maskaxda ayaa ku dhacay sidii u fikrayeen waxaa abiis gareeya askarta ay jeeshay xabsiga haysata waxaa kaloo abiis gareeya maxaabiista criminalka ee meesha ku xiran ee waddanka u dhashay ayaa iyaguna nimanka bilaa dalka ayay arkaan markaasi waxay doonaan ku sameeyaan oo garaacaan oo dhirbaaxaan oo abiis gareeya dhowaan ayay heleen in Facebook iyo social media ay arrinkooda ku soo bandhigaan dabeetana khadka telefoonka markii labaad aan kula hadlay waa laga jabay waxaa la ogaaday in Facebook ay dhigeen arrimahoodii oo ka warramay dabeetana waxaa ku socda haatan wiilasha baaritaan la leeyahay warna ceebaseen waddanka Seychelles ayaad soo bandhigteen in ay xoog idinku haystaan idin garaacaan adduunyada waa na maqashay oo na soo canaanatay ninka dambe Facebook ka hadla ee wiilasha ka mid ah waxaa loo geysan doonaa dhib intuu sheeganayo ka badan labadeeda mar dambe kuma hadli doonaan khadka telefoonka iyo social media toona isticmaali doonaan dhaartaas wuxuu keentay in niyad jab xoog uu ku dhaco iyagoo Soomaali badan laga yaabo inay markaa la xiriireen waxaan ku tusi doonaa sawirradooda iyo warqad qoraal ah oo ay u soo qoreen madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo maxamed cabdilaahi farmaajo iyo aniga oo ay ugu soo dareen maadaama anigu aan la xidhiidho xabsiga kula xidhiidho warqadaana dadka ayay ugu soo gudbin doonaa laakiin qoraalkeed haddaan soo koobo waxa weeye in dadka meesha lagu ilaabay in 14 sannadood ilaa 20 sannadood ay meesha ku xidhan yihiin inay u baahan yihiin at least in xitaa xabsiyadooda loo gudbiyo dalkooda haddii wax kale loo qaban kari waayo
haddiise loo helo cid u dooda iyo cid u tagto Soomaaliya dawladeeda matalaysa waxa laga yaabaa in la sii daayo sababta dambiyada lagu hayaa maaha wax oo sax marka dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in ay xoog saaraan in wiilasha iyo kuwa kale oo xabsiga kala duwan ku xiranba in uu food loo diro sax la dhiirgareeyo dawladaha meesha ka jira oo intii la sii dayn karay la sii daayo inta kalena xabsi looga dhigo wadankooda si ehladooda ay u soo saarto wasaas inamada waxaan ku darayaa 25 wiil oo Hargeysa ku xiran oo loo haysto iyaguna budcabadeed si shakhs baa laga keenay jeelka Hargeysa ayay ku xidhay ayaa loo sii dibiyay waxa lagu xukumay 20 sano iyo ka badan dhalinyarada 5 waxay ka yimaadeen badankooda galmudug halkaas ciidan warmayso ma ogola balkuwaan waxaan iyana usoo jeedinaa dowladda Soomaaliland iyo Soomaalida oo dhanba in wiilashan at least iyaga lagu xirdo dhulka ka yimaadeen haddii dambi loo haysto oo galmudug la geeyo si eheladoodii qaraabadooda iyana ay u soo saaraan Soomaalida kala daadaadsanta waayo inta Soomaaliya gudaha ku jirtaa waxay leeyihiin haddii ilaahay ku rooyahay wasaaradda hebla reer hebel kama muuqdaan wiilashoodina halkaas ku dhamaadeen kama fikirayaan waxaan aynu ka hadlayno iyo dhibaatada lagu hayo dhalinyaradii jiilkii saddexaad oo si dhamaanaya oo ku idlaaday badda iyo jeelasha Soomaaliya bergo xasuus odayaal badan isku soo hartay dhalinyarada waa u dhamaan dhalinyarada isku imays taasna waa baraha internetka waxaan dhawaan ka arkaynay dad Liibiya la garaacayo dhalinyarada dadkan maamo magafayaasha ay garaacayaan iyagoo waalidkood weydiisanaya lacag dhibaatada tahriibtu ma aha dhibaato sahlan yaasino oo soo afjar kare waa dhibaato ilaa 5,000 oo Soomaali oo dhalinyaro 5,000 people ayaa ku xiran xabsiyada ugu badan Liibiya Suudaan iyo Yemen iyagoo loo haysto madax furasho inay ku bixiyaan $8,000 oo dollar $10,000 oo dollar $5,000 oo dollar magafe beriga hore dadku wuxuu oran jiray numberka hooyada ama aabaha keen si loola xiriiro oo lacag soo diro imika wuxuu leeyahay hooyada Facebook ma leeyahay ma ku leeyahay ay dawladdu intuu garaaco ku duubto ayuu ku duubaa marka hooyada loo diro أول فلوس الله دينتا يدو معان دينتا يدو الله يدوان دينتا يدو أول فلوس يا قاعدة أنت الله يدو معان وانتي ذاك اللي يدلي أنا وصول مالين كفا أنت كبرني بوادي صابحي سيدي صابحي وارد يدو معان أول يلا الكلمة اللي هي هذا الباب كلها يدو معان الله يدو لكن هو برورانس أي سو هذا وترى الصومالي كأنه هذا السيو هدي له يكون يقول كامل جودا ليس ده يسون 2 مليون يشمق أوكم أي الصومالي كوب حساب إلا تحريم سبت كاست 2 مليون يشمق أوكم لأن شغال وصومالي لأن يرى ذا وحلو إيبيا وهو يقول دي أبو يشوت أيو إيبيا دول أما قولي يروي هتلاعي وحقيقة كأ ولرت أنت حرنا شنطة كنا كلا الصوص أي أباهن إلا تشوشي سيلو تشوشي وما علينا قال لك والدم اللي قال لي عندي دور سعيد تهمس المحكمة السلطة وقفوه ما هنن يلا مال كستا ويجوا حفيسي كلنا جيسا وقالوا بوصاصو مقدشو السودان يلي ملك سوي لي جوا واحد قال ها dhalinyarada lacag loo dureeyo ay ku soo dhaafaan qoluuk kana meesha ala laga soo bixinaa lacag hadii aad danyarta dhowrta lagu garaaco guriga hooyada daba keen hakayto lacag marka waalidiinta marka ugu horeysa waxa ku haboon in guri heer walba horta isagu uu arrintaas ugu horteegaa isagoo dawladda ku siin uu ka hortago oo ilmihiisa baajiyo ويبيسوا مديرين كلهم كتير ويبيو يتنو هذا أدوك ضاف أدوك صعب إلا كنترولو ضد كسير قد بيملا حبها الدنيا رضاي بقولة كاملة صح مركب حب عن تهاوشن برارجلي وعيقلين يخرج فربضن كل جليو
oo 2 milyan iyo 5 boqol ay dadweynaha Soomaaliyeed jeedkooda ka soo baxay mid la mid ah laga hortay wasaas waaga ay inta ku soo gudbeen dhalinyarada badda ku ilaabis haddaba maanso gabar Soomaaliyeed ay u tirisay dadka tahriibay ayaan jecelahay inaan ummadda Soomaaliyeed aan maqashiyo dawshanaad duufaan bayna soo galay ka ducaysta darafyada horta dulucda maansada dadku hayla eegaan damqashada xanuun kale anuun baa dareemeed ayartaydu may garan mari dawladeedii tustusii afmeesha ragii doobta dheeraa dhaliilaha daldali jiray maxaan loo dareemay inta ayartaa dhamaatay haadu diiranaysay dilaaliintu qaybsheen lagu taajay saxara daayinow allahayow deeqlow ilaahow dayimal raxmaanow darajaalihiyow dunidaba ka uumee haddana daadejinayow degdeg iyo cajiib oo dalabkayganiga yeel da'yartaa dhammaatayna iimaanka deeqsiyo dalka iigu soo celi waa lagu halleeye hooyo waa lagu hagradeeye hooyo waan lagu hadlaynina hooyo hanfi kuma haleeleen hooyo hadda kuma daldalateen hooyo waa halis tahriibtee hooyo waa holoc baxaayee hooyo waa hoyga naartee hooyo waa horarku cunayee hooyo adna halista haygoyn hooyo adna haadka haw tegin hooyo وهذا المكان يا هايو والله ما هراني هايو هم في ماله هباس ماله هايو هر يتبقى ماله هايو دين هذا هذا كهايو وإنها تكبر تهايو أنا هالستهايقين هايو أدنى هات كهوتين هايو ما هرجلا هبينكي هايو قرارتي ما هاي بصدا هايو ودسي حواي هايو وهالستهريبتي هايو أنا هوت كهايقين هايو أدنى هات كهوتين هايو وحتى هيوغيدي هويو هالبولها ودنها يا هويو كيديغا هبايا هويو باركايغا لاغا هوغاي هويو انا هالستهايغوين هويو ادا هورركا هاو تاغين هويو انت دبدكو مقانتahay هويو دين مايو مانسدا هويو ديفتي يا حنون كله هويو دمقشادو ككوتahay هويو برشادو كلابتahay هويو dareenkayga wuxuu dhimay hooyo ana halistahaaygoyn hooyo aada horarka ha u tagin hooyo وما سأل شو عن صباح واي يجا نتا أيين كوي قدنا أي واي وحن تيجي دولة نعم السماء أي ولو تسمع الانترنت عن قول كتر له قضيتنا اللي قدر هي السعودية بتكا دورت صح والله سقطي تضوه ضم بحرية كتري ودك قدر أي Soomaaliya oo labaduba dheef ay ka soo jireen ay arintu ku caddaatay dabeetana Sacuudiga u yeeray ilaa todoba wasiir ayaa tagay si arinta ay mowqif u qaataan Soomaaliya mowqifkeeda xooyay laba wadan oo walaalaha nahay labadiinaba way la jiraan midna kama soo horjeedo laakiin Sacuudiga arinta ku xasay wuxuu leeyahay wixii dhaqaalaha sii jiray hadii aad doonaysaa sideedii siiyo waa inaad qadar xiriirka ku jirta marka Soomaalida qadar iyo Sacuudiga yaa dalbista ay way qadar waa dawlad European waa sax oo aan raad weyn oo Soomaalida markay timaanto sidii Sacuudiga kulahay raad weyn marka la yiraahdo arib kama qaataan sida xajka Soomaalidu ay u tagaan oo kala wadan ay yaqaanaan maaha sida Sacuudiga Soomaalida oo shaqaysato qadar waa milyan waa dif waa sax iyada deeqa waxbarasho oo ay siiso qadar iyana ma jiraan haddii Soomaalidu gurifo lagu la wareego qadar iyo Sacuudiga niman garay ma jiro waay Soomaaliya aad farqad baa ka xigsan waay dawladda qadar arinta lagu eedanaya waxa weeye in argagixisada caalamka oo dhan ay taakulayso lacagtiisa waay dawladda Soomaaliya madaxweyne Sheekh Shariif qadar baa keentay الحين حسن شيء قدر باكيت فرع قدر باكيت جامعة السماء قدر باكيت هدي لا يقول يا هي رئيس وزراء إمك فرماته سنو فرم قدر حق الدولة المدى أي حقوق بين كلها الصومالية يضعوا بست الدولة أنتم تقف الشخصية قف الشخصية والدورة يلا سمع حلقي محاكمته إذا سمس إذا محاكمته اللي بقول جوسي الشباب إذا عرفتي لك حاجة لا يعمل وحياة قاعد إني الشباب اللي سمس محاكمته هذا كيف كنت بيقدر
وحوها ويفرمات كل هذا وحن يشيسيننا الشباب يدك وده يشيسين من حدقية مركا الشباب إليك عندك وهي هذا سكن بطي هي ويوفن قريات مركا دون يوري قريات هي تصار الله بدو فيها حسن داير ويس وها قامياشا وها حكتيرها صح الشباب iyo maxamed siciid atam oo soo ninka oo la mid ah labadaas oo soo dhiibay labadaba waxa magangeliyo u ballan qaaday oo siisay dawladda qaranka oo cadahay hay ida lama diri karo xabsi lagu xiri karo anaga hawsha galaweyni hay ka dawladda qaranka waxa uu egtahay inay yaro qurux badan oo fudud يا حاجة حاجة بس خالص هذا من بيتيس مركز سجاري كنت كا كحسو أي لويدي إذا فيلبينز نقطة ماشي تقول أفغانستان أنت بس رد إذا فيلبين برسلين دولة خالد الصومال ولي أرتي مال حد كما يقال هي حسيش الصومال أي مستاق صلحي وركض وعضاتي وحن حرير كيد دبلوماسي وترنا دولة خالد أنا يلا ما عرفت كاره دولة القدر بايد واحد ونيو السؤال أنت أنا حريق لوتشري ورت حريق ما راح بقى يا أي حتى كوربان من ياسير محمد سياد أيوة يبان كل يوم أنا قراءة أيوة وعين كاس مثلا حسب لي أي مركي الله حبيبي أي حبيبي كنا رادوتي أي مركز سالي حالي بحد كل يوم أي مركز وحبي إلا السحب ما كهربي ترى الخيار إن أطلع ساحبه ما نقدر أي وكان قدر حب هذا سؤال أنت حريق الوتر وتحريق بمرحلة أيها خارج أي أن وحب دولة ويضطر يتبدل أي كتير دولة الصومال إن أي لعبة قليك كان يكسر كذا قدر السعودية العربية الإمارات مركا أي دلوه قاعد أيجي يقول لفتوه عن سوق من حسين وصور لما تدور في سنة الدبي عن قاعد في عن كوي حدنا لبدر من دورة وكذا وحبوا ذا هنا السعودية ينور كذا وين هندو وين وحب تيدون برعوة السعودية شو بيود حول وكل عي كنت قرمة حول هي ياسين وعرت على قاتي هي مير بخيل هي ما شاء الله هي أدو قال أشخاص قال حكومة دي معمولة دي حلو وين وحلوين دون بوهل يمد بوهل هي واحد قاعدين دوي يبيو الوصل يوم ما يصح النعيم اللي له الوصل يوم يسلبوه ما شاء الله هي دويك waxa la gaarsiiyay dadkii xanuunsanayay biyi gaarigii sidii biyaha aynaba ayaa loo xidhay waxa ma gudu kartaa sababeena waxa biyaha soo sameeyeen waxa ku qoran annaciim baa la buucdo laakiin marka karaatinta iyo la eego dhalooyinka waxa ku qoran buu hadle Soomaaliya يا الله وارم وارم مركب روح هذا وي قبل بعض إحنا ما قبل بعض إحنا وحلو حري مريء على كيس سومالي وصح أي يمكن بيو أي كورين سومالي أي اللودي ده يعني إن العبان درك حمصن أجيب وبيا وصل على كل دي مركب حدي وحول بالله السياسة وستريس بيها سياسة جل وروبية سياسة جل وواحد وما ضارب هذا معنى وسهوي marka dadku waa dad walaala oo xilli waalimo iyo mid ganacsi iyo mid gargaar iyo mid marti inta baa ka dhaxaysa siyaasaddu waa ala gab halkaas iska taallaa dadka biyo bay gaadhin gaadhigaas wuxuu siday 300 oo kartoon waxaa lagu dhaliyay magaalada Boqol aana ka dhambaanay bal aan ku tuso dhalooyinkii iyo karaatintii iyo calaamadii muujinaysay Boqol Soomaaliya bal shucaysa فالواوي قرط وي هي أيضا كان سياسي هو إسماعيل بوكا أي سوى دوني إيربورت كان مقالها لسين وكرف أي اللودي دولو هي حسب الوطني الكترسي وحلوين واحد زي باسبور دبلوماسية أو الصومالية هي
بيه مش كنا حبك من بيه عقد فلان ايوه هو باسبور سومالي وانا قلت سومالي سومالي اما دبلوماسيا سومالي باسبور هي يا marka waxa la yaab waxa kamid hadii ba ay jirto qaanuun ah in baasaboorka aan lagu dhoofin Soomaaliga oo laga dhoofin waxa jooga wafdi ka socda Khaatun oo Ali Khaliif oo hogaaminaya wafdi Ali mooya inta kale baasaboor Soomaaliya kulli oo la asl hay ka dhoofiyaan wasiir kale لو بدي كشرعي والله تشيفيانا بنام يا اسماعيل بوبا وحمود مركا إن باسبور كيس لو جيدين إن حسبي وطني لو مدي أيا لو مدي مركا حسبي مركا سلام سرعة كلية هذا كلية هذا ما ينوش أنت كلية كتر سنة باسبور تبي ما تصمد وضوء يس كم شيء كل شيء مركت مع أي شيء لكن اسماعيل بوبا كل يوم بس باسبور كامل دبك لبعضه حويان وحسبك وكتر سنة معارك وين حسبك لا يركي كذا يا مغشيني كل يوم وحسبك كل يوم كتر سنة بدار ماي والدرب على حلو المغسل والدرب يورس مركا خلاص أي مرة ويا ياسينو إن بوبا اسمعي بوبا سولو ودي باسبور كاس سومالي ونقول إحنا إيه دولة دي لا يقول يا واحد شو وفدي خاتون كتر سنة وعلى خلفه وقامنا الصومال على خلفه يعني وفدي إنتي سكر باسبور روح يستن الصومال شرعي والله تشوف يا رب مركز الدنيا وحوي أما باشور حبس شياسي أما الصومالي عندك حمر مركز الدنيا سيده وطن وحوي باسبور كسر يا مركز قولاداس خاتم حلو دولار بكرة فكرة إيربورت يو الصومالي باسكس طيب العالم الصومالي أوكي هذا وفد قاتل وسريين يبقى ما كيس بإمكان استوى الكروس وقاعد واحد يماتين مقالة كيس لكن على خير أيام إيجنا لفتيس وعد تجي أنتوا هذا شو هالكيس عمركم مو بدين تقول قبلي وعد تجي هذه لا كوري هاي بورما وعد تجي دكسيا صار يا جماعة عمود مركب عشويتي مدعيني خاتون وكرميرة وحبرشوش سؤال سؤال مرة كرميرة وزارة حبرشوش هي جامعة التجي سكوكي التجي لا يا حدا هذا حال بوخ نقول ضرب ما قرر لكن لا يا حدا عالي شو الذي بتتجي سياستي ضغط هاي ولي لو موجود ينو نقدر نعمل بلابتو أي لا بلابتو maxaa loo xiga waxaan loo doonaa yaasiino waxaan doonayaa dawooyinka Soomaalida kiniinada la qaato ayaan doonayaa inaan magacyo bixiyo marka farmashiyada marka la tegayo ayaa hadaysi waxa laga yaabaa in dawooyinka qaarkood magacyadooda aad garan weyday sax waa tahay kiniin madaxa idib kii caloosh asqaada waxabo wacyigiis marka waxaan isku dayaa إن كلمة عن قارب مقعوب هي مركب هجيس القبلات هي كنينك قف بدونين سعد الله يقالوا دياسة بق أما والله جاي بمكان أنت كسر مقعودك مقعيك أي شاب أي مقعد كنينك دياسة بق معلوم بالسيلان مركب سيمبل كل شيء مشير والله اللي واحد بس سينايا إيدي أبو سهل ما يقولون فهم بيه إذا كنيك هودل قالت بيين كله أي كم بضحهم والبد مجريك ولا لكن عاي إشائيو أنت أصلا بس في جناي نجف كان دولة كان هلك أتكور الله هاي كنيك نجف إيدي أما بضحهم بالزيادة إيدي لما فيصل على وراء إيدي بالله أي يا وزاس واحد جرتا شراب لعبه خلقن ريد بول بالك ريد بول هو انرجي كسينه تمر بكسينه حاجه دور صار 8 اورز ايات كونسيبت وش ريد بول وحبب الحسنه اللي ما هو تمرت بدور بس كي انرجي تمرت ايدي هلا علبه اما قرار اما ضرب على خليفه ايدي عمل على خليفه مركا انرجي واحد بحق الله هل قليل إيد بدر شراب أصل قديم أيه أسيب رجال واساس ويا
كلينيك حاجة مساحة أيام سيرنا مرة بحضر هي سوى حلو بحلها جاس عدول جاس هي لو صار بس السماح الله لما حبوا جاس إيدي جاس كان مثل جاس تيجي هضبة أنا واحد الدنيا هضبة هي السجارة هذا سنقول بدون هي واحد تيجي دولار عاد فضل هي مركز دول سنة بالمال waxay u Soomaalidu meesha maraysa oo dadka xirxiraan iska ilmeys oo ilmo xoog ka iman laba farmaajo ay balle laba farmaajo ku turan waaye stress ku kacsan waa doon sida dajisi oo qabowdo dadka la mid waxa leedahay laba axmed mudabay laba axmed ay ya أي ستريس وحلا لا بتجي في أحمد المذوب أي بضايع هو فرنسا وصل أي كلمة دي أيام سيدا وحبيب بدل هي ويا قبل برامج كده تقدر والله ساعتها إنه برامج كده أنت بدل كفتك بسكو إنه هاي برامج أن تطبق الصحة هاي نصح أو أدير هاي كوري هاي خلاص لقوا أنا نجعل لها إن دبلوسة وساس مسؤولية المنطقة ستها علماء الموضوعات قصتها أرنتاسي أبوان قصتها قال حمدا ضدك أن دون ينصحهم أيادي من الصحيح هي لين سهل تاني والله هذا أبوان عداوي وبرعته السكان كترسم يعني I think بريد بوليسي أيين هذا كه أيين مرة يرتاحها ده بيترجع جواب كله أيون سوسي هو للباح هو أساس وحن اللي بحنا نسمع ذلك ولا يهي هو اللي سامح كل خدام بالوجه مركز سامحناكم عافية مسامحة لك وحن كلكم سعودي وانتك أتصلا إن لفتين الله ينعنانا كرب وعنانت أنت مقالمة أنا أقول بدك تسكر إذا الله ينعنانا تسكر بالذكر ومرغين العبي أيام كرسون تفتن بدك تسكر صح أبوان علاوي وحنقول بريانية وبوجادينية سيدا وناكسن ونوصل عليه وشركة ترايد نقدر نكح وسبي وأنا صاحب كنا وانين حضنا قبيا وما صيف هذا إذا كفتن كأسوق قبيا نورت تيسي أنا كسي هرتلو إنه نحن لنا بالوجه أبوان وين عفين عفين مسافة الوعي والرية ضليل أمام وين كسب ناسية تلم واسع بل دور شو أحسن أبوان على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحن هل كان يرد شواب علينا كسينا يا على حرارة نك اللي هي كفتك السياسة ده وكحد قد بيها ولا فرق بدن شريته أنا جوا مكان عداوي هو دين ميجي أفر مدان كهضلي أفر تمادو من واحد يدين لا يستاكلوا أمر كي مدحوينها وأنا هذيك سدي واحد تصيموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آيات وحوي خلدنا الكران لكن وحوي دينته آيات القرآن كي سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء بل ساعة حرارة وحكي خلدنا سيد اللي يسوي شيء سمنار كذا أنا الله فروا عن طلبات كفتك السياسة ده يدينته إلهي وكرنوع ثاني نفهمها وعن وحكي صدحها حل جيل ممنوع القرآن كبايا آياتها لا ضفري رجع دور كنا للسبي أنا رجع وجه هذا بأنهي كوي بنية بأنهي كوي كوجوليس بأنهي إما كان كوي كوجرب تاجم بأنهي عيد كستو خرط كشيك تنا عيد جديدة بأنهي وأنا خلنا بكرة بنادم بأنهي لكن وأنا صحينا بس سيدي وحوش يجلها أيا كخلدن وحنا يكون شهر قرينية iyo kasoo gudbinaya iyo kuwa haflagaadada raacinaya horta dhamaantood ay saaxiib yihiin laakiin waxa wacan qofku inuu barto qaabka diinta looga jawaabo waxay qayb waxa if you want to be barbar in the war waxaan la hadlayay ingiriisku wuxuu yiraahdaa hadaa doonaysa nabadgelyo diyaar garow dagaal waxaan la hadlayay dawladda Itaalka daran ee ama Soomaaliyeed noo soo hanjabaysa oo aan ku sameyn karo qalin wadaha saacada gudahood midna waxay ahayd qaybtii gabayga yare gaaban ee ومرة دي 5 سنة لو عقتو عالق لغا واي عدغي هادو نغو حكمي عالكي توحيدك درسكي هادو عاويه نبد عيل باشي امريكي خاتمه هادو عضو دريع علي خليف جوجو امريكي جيركان waa hormuud curiye taariikhi cadawgii jab waa 10 karo loogu celiyaa waxa weeyaan qaybaha noocaas ayuu kala ahaa aan waafajinayay amarkii madaxweynaha ee uu yiri ee dhiin bay hantida aan ugu ururino oo aan joojino
xafladaha aynu dhigi jirnay markaa waxaan lahaa iskaalmeeya oo sidii ilaahay yidhi gacmaha isu xadhigayga qabsada isu qabsada kala teginee dadka jilicsan waa siiya taasina saasay ahayd dhammaan intii aflagaadeysay intii soo sheer garaysay inta imaagtay iyo cali xarana way iga saabax wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu يا في عمر فوق هذا واي وهكذا برنامج كذي ما أنت وعاد إيش يقول سير الله يقول سير مركزين أنت أيام سكوبيا وي عاد يعني المرلبات دي مسد حدا هم سنتاي هل كان نقول سنتين وكان سنتي في ونقول ياسين دعاء يعني كريتيا سيدا أيه نبت قلي